maanta waa ogtihiin waa koodii July waxaynu xidhanay weer baynu xidhanay berigii hore waxaynu weerka xidhan jirnay markii la bixiyey dhulka reserve area hawda reserve area ee 450 lagu wareejiyey Ethiopia ay weerka cad soo baxay marka maantana waxaan tusinaa qoladayna lahayd muusbay soo doonteen inaanu ka xunnahay oo weer ka xidhanay isku darkii berigaa isku dar mooyaane isdhiibistii la isdhiibnay inagoo Soomaalida doonina oo shan Soomaaliland doonina oo weliba doonina shoonaha shanaad kilarkaa shanaad ayaa ina geeyey si loogu helo xuduud Soomaaliyeed ina habsano maantana waa ogtiin kilarka shanaad waxa ka taagan reer axmed adigu reer howdbaatiino yuu caalo waa garanaysa dadka lagu dilay waxa maanta ka taagan kilarka shanaad waxa nasiib darro ah laba dagaal been Ethiopia la galay labada jeer baan la galayba waa dagaalada qur ee Afrika ka dhaxdhacay ee dawlad ku weerartay Soomaaliya ayaa ugu horeysay oo laba jeer Ethiopia weerartay waa ogtii halka markii 77 in dagaalku wuxuu ku socday waqooyiga Somaliland ayaa laga duuliyay dadkeena ku dhintay halka ay sayru qabanay dadkii ka soo qaxay magaalada Kenya shanaad wala socota waxa nasiib darro ah maanta oo soo modern Ethiopia la cusub ay siisay dawlad goboleed kilarka shanaad ee Soomaaliya oo af Soomaaliga lagu hadlayo oo sayidkii laga taagay in maanta Soomaalida loo dhiibay kilarka shanaad inay waxay sameynayaan aan yahuud sameyn baan maanta idin waa ku celinay waa nasiib darro waxay warrameen qolada khaatumay warantay adduunka kama dhicin askar inta timaado magaalo timaada tiraaha waanu dheregnay dumarka nasiya adduunka kama dhicin Soomaaliya may soo maray xitaa dawladii siyaad baray way kubsan jirtay nasiya ma wada jirin oo baad xablaa looga sii jiray wadaniga waxa saataagay maanta waxaan sheegnaa dawladnimadeeni way soo cishay hasaa waxa weey nasiib dareedeen maana dhaweyto waxaan ii sheegay nin kale ina farmaajo waa ogtiin wuxuu ku caqliyeysay dawladii Maxamed Siyaad Barre caruurtu markay yar tahay ee dhabta lagu hayo waxay duubtaa caruur gurigood waxa ka socda ay duubtaa hadduu ilmo yar oo qalqaali ka horeeyo way duubtaa hadduu isna qalqaali buu noqdaa yana farmaajo wuxuu duubay Maxamed Siyaad dhaqankiisa uu duubay hadda kiibu inuu isticmaalayo dawladda u dhiibtay ee dooratay inuu falay baan maleynaya yaanu manihi wala maanu tagtay ala khaliifka kacsano heshiiska khaatumo ka kacsan kul ayaa u tagtay waxaan doonaynaa ictiraafti oo dadaga dhigtay state wixii waan state ka dhigi maayee waxba noqon maaysaane ee waxaan ku darayaa buu yiri Puntland baan ku darayaa waa ninka hawaysanaya ee garanay dadka suuqa hawaysanaya intuu soo jaro iyo buu hoole inuu ku daro ma jeerteen halkaas hortan la marinaya inagoo 25 sano dawladahin ayaa maanta inaan ka yar ee magaranaysa magaalo Soomaaliya way burburtay midba gurigiisii buu tagay magaalo uu taga male magaalo Soomaaliya ku taalo ninkaasi oo badaha uu ka taga xamar hayn karaysa ma jirto waa taageerkood halsay u tagay kiiba maanta doonaya inuu shir ku qabto lacag ku bixiyo buu hoole oo ila cali khaliifna waaridnay heshiiskiina waan ka baxnay waxaanu ku darsanay ma jeerteediya horta halkaas ayna marinaya maanta waxa weey hadaba maxaynu halka la inoo mariyaa weey waxa weey 25 sanadood dawlad baynu ahayn maalin baan wada qabsanay Eritrea iyo Ethiopia iyo Soomaaliya maalin bay saddex dawladood baan samaysmeen maanta wada ogtay Ethiopia halkii mariso waa super power Eritrea waa aragtay halkii marisa inaguna maanta waxa weey dawakayna ka yara farmaajo Soomaaliya aan jirin madaxa laga dhigay ee lagu isticmaalayaa in dalka Soomaaliya lagu boobo le waxaan ka shariyaa soo iyo sanaag baan shariyaayo
oon ku daraya majeerteen iyo xuduudiiba oon bilaabayaa sidii super powerkii ayaan Soomaaliya xuduudeed burburinaya innaga inaga arkay walaal hadda waxaan sheegnaa walaal anigu waxaan isku galay siyaasadda waxaan u garaadaysay Soomaaliya oo aynu ka ilbaxsanahay oo ka tacliin badannahay maalinteenu ku darsanay 5 iskuul baan lahayn oo farsamada ah kii macallimiinta aan lahayn kii kariinka aan lahayn karaaninka kii waxaan lahayn trainingska aan lahayn kii TTC aan lahayn kii neerska aan lahayn 5 professional ay lahayn maanta aan mid aan haysan iyagu u mid qura ma lahayn secondary ma lahayn waxay lahaayeen meel la yiraahdo Allah ida cagaaran oo masaaru ay ismasaaran jirtay waxa la dhisay laba iskuul oo high school min Allah fooluha min banaadir imtixaan baa la qaaday boqolkiiba 90 waxaan qoray waqooyiga noqday maanta waxa way inaga tacliin badan yihiin way inaga dhaqaale badan yihiin way inaga ilbaxsan yihiin af Soomaaliya inagu aynu ku hadlay BBC da radio Hargeysa radio Soomaaliya u horiyay maanta voice of America waa aragtay iyaga haysta BBC waa aragtay af Soomaaliya ugu ciyaaraya waxa hoos inoo dhigay ee ina dhaafiyay waa awoodii dawladnimo waa wada ogtiin dadkeena bukay ee caafimaad ku socday waxaan ku leeyahay inuu booliska ku guumaysta oo dhaxda ku baabiyo walaalayaal waxaan jecelahay walaalayaal dawladda Itoobiya waa la xisaabtamina 700,000 oo milyan ay inaga qaataa inaga hesha walaalayaal waxay naga qaataa wala caafimaad baan u tagnaa waxaan u tagnaa walaalayaal cudurradan ka keenana waxay keenan qaadkay keenan wax kasta way keenan bad ma geeyna walaalayaal subhanahu wa ta'ala waxa tog wajaala jooga kootormaan bay ku gali jireen kootorbaanka waa laga jaray dhaqaalaha ma laynoo dagaalamaya inaguna qaab baynu ku jeednaa iyo habar baynu ku jeednaa waa la inoo tashaday rag baa shaaruba inoo xeeqaya oo doonayna ciid afka inoo geliya